degmada Sheekh oo ah degmada labaad ee gobolka Saaxil ayaa horumar weyn ku tallaabsatay tan iyo waqtiga la soo doortay golahan cusub ee deegaanka. mashaariic kala duwan oo la xiriira horumarinta dhinaca bulshada, gaar ahaan hirgelinta suuqyo waaweyn oo lagu ganacsado iyo weliba goobo lagu iibiyo xoolaha nool, dugsiyo iyo goobo caafimaad ay gacanta ku hayaan golahan cusub. waxaa sidoo kale ka mid ah mashaariic la xiriira dhinaca dhismaha wadooyinka. waddo weyn oo gaadhaysa ilaa 2 kiiloomitir oo noqonaysa wadadii ugu dheereed ay hirgeliyaan ayaa iyana ka socota dhinaca bari ee degmada Sheekh. maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Maxamed Faarax Axmed oo warramay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu ka warramay mashaariicda ay hirgeliyeen iyo weliba kuwa ay gacanta ku hayaan. nasiibna anagu aanu yeelan intii aan joogno. wadadani waa 2 kiiloomitir. sabab inoo sheegay injineerku waxa iska kaashanaya saddexda qaybood ee dawladda hoose, dawladda dhexe iyo hay'adaha GPLG-ga. waxay maraysaa halkii ugu mudnayd. magaaladu way fidaysaa. mar haday magaaladu fidayso way u baahneed wadadan dhowr jeer hore la hindisay. magaaladana xagga sare kaga imanaysaa. waana hab corridor ah laamiga inta halka ka soo bilowdo ay buurta gaadhay haddana si maxay ay laamigii kala ka daraysaa. saldhiga ayaa markaa maxay uu qofka ka soo bilaaba kaalinta saldhigu markaas ku teekaraya. qof kasto xaafadahan u baahnaa markii hore la cadilaa wada xumada iyo jeexjeexyada ay biyuhu gooyeen si yar oo fudud maanta ku teekaraya. markaa waxaan iyadana in la xuso mudan dadweynaha xaafadahan ay wadadu martay oo runtii si fiican oo dhibirsanaana u soo dhaweeyay wadada inaan u mahadnaqdan iyaguna mudan. haddii aynu gallo mashaariicda kale imka iyaduna noo socota waxaa ka mid ah iskuul raari oo isagana imka magaalada raari la yiraahdo moogtay ilaa 6 kiiloomitir magaalada u jirta. waa xaafad markaa iyaduna halkaas ka mid ah. iskuulkaasi gabagabo ku dhawey markaa isagana insha Allah waynu arki doonaa. waxaa ka mid ah 3 xanaano ama MCH oo ay ka mid tahay xanaanada magaalada oo extension lagu sameeyay la fidinayay markaa xanaanada suuqsado iyadana soo kale qayb lagu kordhinayay. kulmiye oo iyadana lagu kordhinayay qayb ayaa iyaduna ka mid ah oo mashaariicda imka ay noo socota. waxa sidoo kale iyadana ay dawladda hoose wadaayo ka mid ah mashaariicda imka socota isla markaana ilmka sii eegi doona. meat marketka ama saribada hilibka oo iyadana si ay u qaado dumarkii hiliblaha u wada qaado ilaa 200 oo dumarana ay u fariistaan ayaa loo sameeynaya ballaadhin iyo duba habeynba dub loogu sameeynaya. qaar ka mid ah injineerada dawladda hoose gacanta ka siinaya dhismaha wadadaasi ayaa iyaguna sheegay halka ay marayso wadadu iyo weliba ahmiyadda uu leedahay degmada Sheekh. waxa weeye mashruucan waa wado 2 kiiloomitir oo termic road ah. wadadaas waxay dhex mari doontaa degmada Sheekh. wadada termiga ah waxa weeye waxay yeelan doontaa u dhisnaan doontaa si casriya. waxa loo sameyn doonaa wixii allaale wixii ay wada u baahnayd sida waxa weeye drainage-kii, Irish cross-yadii iyo meelihii biyuhu ay ka talaabayeen. mashruucaasna wuxuu qaadan doonaa 3 bilood insha Allah inagu soo foolle. golahan cusub ee degmada Sheekh oo ah u badan dhalinyaro ayaa waqtigan ka shaqeynaya sidii ay u horumarin lahaayeen degmadaasi iyo weliba adeegyada bulshada. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.